runtii buuggan oo magaciisu yahay dibanayaasha isdhalay waa taariikh ama aynu oran karno waa dhaqan Soomaaliyeed saafiya oo qolaab ka soo ururiyay muddo fara badan gobolkan aynu joogno iyo gobolada hareeraheeda waa buug uu dhameystiran yahay dhammaan qaababkii loo qorayay heer caalami buug af Soomaaliya noocan oo kale buuggan waa wuxuu yahay qisooyin fara badan oo silsilad taxan oo dhaqan Soomaali mushkilado iyo xalintoodiiba ay wada wataan waa buug runtii loo baahnaa xilligan inuu soo baxo waa buug inuu muujinayo oo qof kasto akhriyaba ku sawir doona dhibaatooyin fara badan oo aad ka dheehan karto bulshadeena maanta isla markaasina xalkeeda aad heli karto waa buug dhibaato iyo dhaqan iyo cilmi iyo dhammaan fankii suugaan iyo wax walba ku dhameystiran yahay buuggan runtii waxa anigu saxaafadda gobolka matalaya ayaa buuggan runtii saagnay Jamaal oo isagoo handraaf ku haya waxaan kula taliyay markaa buuggan inuu noqdo buug soo baxa oo waliba aan u qoondaynay aniga iyo injineer Bikro oo haatan nala fadhiya madasha inaan buuggan ka dhigno buug runtii u dhameystiran yahay qaababka loo qoro ee qoraayada caalamka ay qoraan waan ku guulaysanay insha Allah waxaan jecelahay buuggaasi inaad arki doontaan isaguna faahfaahintiisa isaga ayaa ka bixin doona inta badan buuggan uu qoray Jamaal Umar Ibrahim buug hal buug waa laba buug laakiin markii hore way kala midna waa maxay qisooyin dhab ah ka kale waa qiso dhab laakiin wuxuu madadaalo iyo sheeko isku dhex jira midna waa qiso dhab ka turjumaya marka qiso dhabta ka turjumaya haddaynu ku horeyno waxaa la yidhaahdaa dhibanayaasha suu caddeeyo xasan dhibanayaasha isdhalay dhibanayaasha isdhalay markaan midatuso amaan maxay dalkaas ka dheehan kartaan waxa weeyaan nin subraarkii iyo ushii iyo warankii dhaqankii Soomaaliyeed oo maxay ka taagan dhinacaas midig iyo gabadh xidhan maxay ahaydey mareedii lagu yaqaanay dhaqankeenu ahay darmuud maxaa loola jiray gedaramuus garayskeedii ayaa ka muuqata halka waa waxyaalo dhaqankii soo jiraanka ahaa ee weliba gobolka awdalida u ahaa ay halkaa ku sawran yihiin waa dhibanayaasha isdhalay dhibanayaal markaad maqasho waxbaad dareemaysaa waa dad la dulmaya isaanbu macnaha dhibanayaashaas markaa way isdhaleen halka waxaa ku sii xigta waa hooyadii qisooyinka Soomaaliyeed buuggaas wuxuu ka turjumayaa inuu yahay hooyada qisooyinka Soomaalida ama Soomaaliyeed inta haddaan ku soo gabagabeeyo waxaan maxay u gudbayaa buuggan labaad oo la yidhaahdo baydadkii geeska oo ninkan magaranaysa baydadkii geeskuna abyal xagaa qurxaan yahay abyal xagaa qurxaan magaciisa la yidhaha abyan xagaa qurxan waa magaranaysa waa majaajilooyin iyo sheekooyin gaagaaban isagu waxaan fikirkaas siiyey waa 51 bish wey qof kasta uu akhriya maalin buu akhri karaya fikirkii talayn markaad kadib waanu yaryaraynaa si aan kaydigayno koobkii shaay baan xafaaf ka dhigay saanu soo yaryar idinkuna aad ka cajiso qofku markuu yidhahdo akhri 250 maxay leeyihiin baish markuu akhri yidhahdo maalin baa inbuu dhiganayaa inuu ilaabaa laga yaabaa uu tukan akhriyo marka laakiin seena halkan aan ku dhaamaya laga yaabaa walaa war ummadda midis wala akhriyo ka bacdi wixii fikra akhrintan waxaad akhriyaysi waxaad wax kastoo quraan ka taaqrido daa'ima ka akhrido haddaad buug ka akhrido maskaxda dhisaysa xafladda furitaanka buugga kan ay qoray injineer Jamaal Umar Ibrahim oo runtii ka turjumaya taariikhda ama culture-ka gobolka hay'adaha ummadda waxay ku faantaa oo dhaqankeeda weyn aad maanta telefishinada daawataan mar wadamada kala qaarkood aritaan waxaad arkaysaan waddan walba inuu kuu soo hormariyo culture-kiisa dii aad tagtaan oo culture-kiisa markaaba ku leeyahay culture-kayga ayaa lagu dhawo waxaa kugu diidaya markaad inaad kaaga ku faanto waxaa kaa hor jooga inaad kaaga wax ka qorto waxayna tahay inay tahay waxyaabo badan oo inaga dhiman runtii waa furitaan fiican in uu qof ka soo jeeda qoraal ka soo jeeda gobolkan uu qoro buug ku salaysan dhaqanka maxaa yeelay maanta shalay waxaa arkayay
waxyaabaha qaarkood examination marka la gelaya imtixaanaadka su-aalo soomaaliya ku jira in su-aalihii soomaaliga inankii wax baranayay waxyaabaha qaarkood garan waayo oo soomaaligiisii afkiisii ku qoran oo u baahdo in looga soo jawaabo ama message soo diraa marka kala fadhiyo uu soo weydiiyo waa nasiib dar halka uu luqadaha kalena uu ka talagalay inuu maartay wax badan kaaga sheego ama ciyaartooyo fara badan oo caalamka codanaya oo taariikhdooda kaaga sheegay laakiin aanu kaaga sheekay kali kuwii awoogaashii iyo kuwii halka ku soo noolaa iyo waxaan idin gobolka lahaa runtii buugan iyo waxyaabaha wax xambaarsan yahay inkastoo aan akhriyo waxaan ka dhegaysanayay macluumaadkiisa oo aan u maleeyay hadalkiisa inuu laba qoray waxaa jishay oo halkan iyaga horreeyo Soomaali badan ka macnaynay oo tala bixin badan ka soo jeedinay iyadoo la soo bandhigayo buugan qaaliga ah oo qoray qoraaga injineer Jamaal Guri Ibrahim oo ka tirsan Bahda Tiraso waxaan u hambalyeynaa oo kale qaybaha aqoonyahanka anigu aan Suudaanka u ahay anigoo ah Suudaanka guud ee Soomaaliland kuna hadlaya afka dhalinyarada Jamhuuriyadda Soomaaliland madal kasta iyo meel kasta oo dhalinyaro isku timaado ama fikir lagu soo bandhigayo waxay saaraan inaan ka jeediyo khudbadeeda ku saabsan xagga dhalinyarta haddii aan taag gudbo ka hadlo duruucdan iyo buugan iyo ujeedadan iyo mabda'a maanta isugu yimiday injineer Jamaal Guri Ibrahim oo aan oran karo haddii aan xagga kale u dhigo Bahda Tiraso ku naqaanay telecommunication oo maanta inoo soo bandhigaysa inay quraan inoo soo bandhigaan iyo buugtoodii taasoo mid labada lagu farxo wala guur soo hoytay ummadda Jamhuuriyadda Soomaaliland waan ku faraxsanahay quraagana waxaan leeyahay buugaasi iyo waqtiga gelisay aad baad ugu maasan tahay kulay talooyin badan oo la siiyay aqoonyahankii iga horreeyay ay maxay soo gudbiyeen waxaan rajaynayaa inaan amal fali doono haddii aan soo qaato quraaga iyo horta run ahaantii waqti badan ku geliyay waxaan u baahan tahay taxadud badan iyo dhaqaale badan bay u baahan tahay dabar adagna uu yeeshay una warkaystay taasna waxa ku imaanay quraaga laakiin nasiib wanaag maanta inaan kor taaganahay oo la taaganahay aan ku faraxsanahay wuxuu ku jahaysan yahay dhalinyarta aqoonyahanada oo ah kuwa uu u furan yahay albaabka mustaqbalka ciideena iyo dadkeena markaan ka hadlo buugan dhibanayaashaas dhalay aan u bixiyey waa qiso dhaba ma aha mal awaal waxaan ku labay iyo wax lagu daray iyo waxaan ka dhibayna ma jirto أروم قرار خبرة له هي إن داري من كاسو إن داري يوم مقاسم ولا مقاسم داري يقول لندي وقايس إن داري يبغى كذا لما قيمات بمكان يقول كذا لما قرار بيقول سوقات وح قرار ده يقول سوقاتي أنت يعني ورورين يجي الصدق ضبط هي يكون هذا كلام هاي هاي كذا عليه كنت تنقلي وحي بدنا تنورني بوبنو عاصن هذا سوق قبي أول سجل قليل هذا سيسوي أدري أقعد هذا محاكم مقام فهذه هذا أقعد هذا حاجة بعد بور مليو سيلع بور مثلا خد غاقي سيلع بتري جدول بوسي مرة بلوك أو سي مرة محاكم تري أيوه هو يري nasiibuna waxaan gacanta ku dhigay sidii ay u dhanay qasada dhabta oo ka soo jeeda gobolkan awdal markaa kadib iyaanu kala gashadaadana mid kale aan aqoon u lahayn oo qoystii buu galiyay isku dubatiisa wuu la dheeraaday aad bil dheeraaday laakiin way iga goonay hadduu moodkii daayay inaan maanta oo kale imaado in hor imaado الحمد لله إلهي وما دام waxaa imika laga hadlay midna yarida buug oo kale in haboon yahay buug horay oo laga xiisa dhacayo haduu buug badan yahay waxa weeyaan wax qiimo leeyahay ma jirto kale uu yahay kuwa kale waa weyn oo 2 iyo 3 iyo baan soo wadaa waxaan jecelahay
sidaan rajaynayo inaanu inagu weynaanin oo inagu yaraado oo buug aad u khafiifa inagu noqdo waan rajaynaya taas waxaan maqli jiray qiso carabi oo la yidhahdo alif leyl waleyl sheekadii kunka habeen iyo habeenka socda waxaan ka helay dalkeenna oo gobolkeenna la ka helay qiso 2000 leyl waleyleyn socda laba kun iyo laba habeen kuwaana tan gacanta ku hayo waa dhibanayaashaas kale insha allah waxaan jirayaa waxaa ka jawaabi doona dadka luuqadooda ku qoraya ee iskale ee guud ahaan Soomaali la yiraahdo oo dhaqankana ku kala leexsanayn dhaqan mid wadaaga afkoodu mid yahay diintoodu mid tahay wax wada dhadhamin kara dhadhama marka la yiraahdo caalamku ummaddu waxa uma wada dhadhamin kara jinsiyad ahaan loogu kala gedisan yahay ee midab loogu kala gedisan yahay ee diin ahaan kala gedisanna iyo dhadhankeena loogu kala gedisan yahay in baa isdhadhamisa markaa kuwa ugu dhadhamada loogu leeyahay isku dhadhamadii waa Soomaali Soomaali oo dhan buu uga dhaxeeya waana dhaqankooda ugu horeeyay isqarna qisa socotay oo awdal ka soo jeedo weey oo la iska dhaxlay matana ilmaha maanta dhashay ee ay ka bilaabatay kii uu dhalay ee isagu uu dhalay ilmahaas uu dhalay oo ku cifaystay oo aad u xanuun badan oo tarantay beeqaantay Soomaali oo dhan xiriirkeedii gaaro Djibouti gaaray waxaan rajaynayaa in layla taaban doono ila taabataan shakhsiyan aniga haddii ay cajabiyo sheekada haddii cajabisa waxaa ka maqaatay kici dadka dee afkooga aan ku hadlayo afkooga ay ku qoran yaa oran doona ma wadna cajabis ama ma cajab waxaan la yaabay waxyaabaha dowladda si leeyahay shidaalka ku shubay sheegaya dhaqaale ma hayn garab kalena ma hayn waxyaabaha shidaalka ku shubay ee ugu dhiirigeliyay yani mata garabka ugu weyn haysto wuxuu ahaa markaan arkay guryaheena oo ay maamulaan niman hindi la yiraahdo iyo niman la yiraahdo Latin America maxaa qolada Mexican Maria Carrera هذا فوق بدن قضاء وشط يعني دم ماريا كليرة محابرة إذا هذا ولا هيك هذا هذا علم ولا لا طيب وكتاري أو نور دم يسنا هنا ماريا كليرة ياي وحياة اشتغل مش بيلك مثل واحد ما عنده كم قليل تلفزيون دليل الصومالي وسأل بشيء كل درين كوب باهي مكان درين كوب باسين أو سنة تلنياشي مؤسسة سمسيت شيكوين كمتشا أو شيكوين الصومالي قال تشا سيقوليها ويصل طبقة شو غيران من تحت جدي هو أنا وان كفر أحسن واحد جعله ورستينيا هو كان يجري الدونان كليه هنا القطع ولا كم الدور أطول الله يقال واحد صوت هذي بوكا يقول لي سنة دبل ياسر هذا قال لي أنت هسه صوت هذي يا قرينا والله